السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمعت وين السلام يا أصحابتي ذي وحرة. هدي أتهاي قف يوحسنا فضلنا سبسكرايب يسار أصحابتنا لسي وذاك إن شاء الله. ما أنت واحد يوذا برامج مهم برامج كاس أو كصاب سواء حتى ضد بدن أو ودنا كشر ملكنا أو ربع إن نقطع تكسيل يال أما تذكر أمبلاس كولا. رأيت وشقة ونعكسن قف كهدي وفرشان هايستنا وفي عن على قدرتك إني كدالين شقوين كله أو مرحبتين تكسيل نقطة. maanta waxaan ku wadaa dawsiid qofku tagsiilo ku noqon karaa maxaa si looga baahan yahay haddaba laba ayaa jira tagsiga haddaan rabto inuu qofku tagsiilo noqdo shuruudihiisa waxaa ka mid ah kow qofku inuu ka weeyo 21 jir inuu 2 sano furshaanka BKF-ga u haystay ta kale ambulance haddaad doonayso inaad darawal ambulance noqoto shuruudaha waxaa ka mid ah 19 sano ka weyn tahay 1 sano BKF furshaan haystay haddaba maxaa laga rabaa inaan la saaraan shaqada aan galo ama aan barnaamijkaas bilaabo haddii aad doonayso inaad noqoto taksiile darawal taxi ama darawal ambulance waxaa laga rabaa wax la yiraahdo B-Shine waxaa la yiraahdaa personen befordringsschein oo loo soo gaabay IHK-ga IHK-ga oo garanaysa meelaha shahaadooyinka badan hospitaalada laga qaato IHK-ga ayaa bixisa haddaba muxuu yahay B-Shine B-Shine wax koorsi maaha waa imtixaan laga qaadayo inta imtixaan koor markuu amal dumad soo sameynaysaa kadibna antaraag baa sameynaysaa antaraago aad waxaad bixinaysaa lacag 50 euro kadib marka antaraag sameyso waxa lagu soo siinayaa warqado ama buug baa lagu soo siinayaa waad akhrinaysaa imtixaanka sida caadiga wada dhaqaano ayaa laba midna afka la iska weydiiyaa midna practice ahaan baa loo galaa kadib kii afka warqadaas xifdiyaysaa kadib si caadiga proofka u galaysaa afka kadibna waxa laga qaadaa mid gacanta su'aalaha dad doonaysa inaad tagsiilo noqoto maxaa laga doonayaa su'aalaha hadda tagsiga practice-ka waxa laga qaadaa su'aalaha macalinka xagga dama soo fiirsan adna gaarigooda adigoo GPS waxba isticmaaleen wuxuu ku oran karaa igee su'aalaha baan hofka kale adoo GPS isticmaaleen waalid baan hofka tagtaa ka kale ambulance-kana xagga dama soo fiirsan si degdeg wuxuu ku oran adoo GPS isticmaaleen hal daqiiqo waxaad ugu geysaa meel heblaayo aan hal daqiiqo ku geysaa ama sekimo raad way kala duwan yihiin marka shuruudaha maxaa laga baahan yahay marka intaana marka hore barnaamijkan waxa laga baahay kow si test inaad sameyso STL kala duwan oo qaybta aad doonayso B-Shine-ka aad u sheegaysaa kadib aad sameynaysaa okay waxaad sameynaysaa warqad waxaad ka soo qaadanaysaa booliisayga inaad tahay recordkaagu cad yahay oo wax dambi gelin intaas oo qura ay laga doonayaa lacag kaaga baxaysa 13 euro warqadda booliisayga lagu dalbado raadska 2 50 euro antaraag aad ku sameynaysaa IHK-ga 3 100 euro proofka laga qaaday proofka laba mid afka iyo mid caadi iyo practice iyo lacag 80 ilaa 150 euro warqadaad ka soo qaadaysa dhakhtarkaaga loo Gesundheitsschein ama Gesundheitsschein labha oo ah warqad inuu dhakhtarku ku baaro inaad caafimaad qabto aanad waaleyn maskaxdaada fiyo tahay oo xanuun kale sida macaanka waxa aad qabin warqadaas ma soo qaadaysa adoo lacag adigu 400 ku dhawaad ayaa laga qaaday ay kaaga baxaysa marka inta sameyso imtixaanka aad ku baasto macalinku wuxuu ku siinayaa warqad naqfayso inaad imtixaankii baastay waad qaadaysaa waxaad u geynaysaa qaybta furshaan ishtaalaha magaalada Islaandarkee badan ku dhex taala kadibna aad taraag sameynaysaa inaad doonayso inaad shayn ka haysato kadibna adigu waxay ku qaadataa dadka ugu yaraan 3 ilaa 5 adigu kolba waxa ku xirantahay si lagu soo jawaabo dhaqso maalinta kadibna uu ku soo dhaco furshaan ishtaalu iyagu badan waxay u gudbiyaan dekraaga ama tuufka saas kolba taqaanaan kadib waxa lagu soo ansixinayaa furshaanka maanta kadib inaad noqon karto darawal taxi ama darawal ambulance waxa kale oo noqon kartaa darawal dadka VIP-ga gawaarida ku kaxeeya gawaarida dadka madaxda waxa jira darawalo sida limousine iyo gawaarida qaaliga dad wada u jira dadkaasi waxay haystaan B-Shine bay haystaan iskama kaxeeyaan raati qofka hadduu iska kaxeeyo B-Shine la'aan raati shaqafa aad iyo aad weyn ku dhacaya aad iyo aad muhiim yahay inaad haysato B-Shine-kaas taxila ma jira wadankan ay ku noolaa Germany aad bay u yar tahay anu wali ma arag qof Soomaali oo taxi wada ama qof Soomaali oo ambulance sababta ugu weyn waxay tahay fikrad baan ka haysan barumaynaya waxa jira dad badan oo Soomaali oo runtii darawalo aad iyo aad marka koro darawalo aad yaani wadankii taxila ku ahaa ama wadankii gawaadhida qaadka oo kale iyo gawaadhida waxa wadi jiray oo runtii darawal aad laakiin markuu halka yimaado aanu haysan qof kula taliya shaqadaas aad bay yaani u dib yar tahay lacag fiican oo lagu qaataa waxaan rabaa inaan qodobkaan kaga tago haddii aad doonayso inaad gasho barnaamijka runtii videoga adigu quseeya
maalinta kadib shaqooyinka kale haddaad ku caajistay iska daa haddaad furushaanka haysto barnaamijkan baan kula talinaya waayo salaamaya wasalaamu calaykum